أنا قرا شغيدا أورارتي وقيح ديدا عندي سهسه من تيلا وكونك ما سغيدا حرالا عرار تيلا أبيك أسوه قل شيء وفوا تاغاتي هوبيا دبده wuxuu hore mariyay muxuu ahaay Puntland oo uu sameeyay wax walba oo muxuu ahaay kaabayaal dhaqaale haday tahay bad haday tahay berri haday tahay shidad ganacsiga oo furfuran oo qof walba iski u ganacsado haweenka way ogtihiin meel walba ayaa dhigataan muxuu ahaayo ganacsigiina tariiq walba ayaa ku ganacsanaysaan cid idin jiidayso ma leh cid idin ka cayrinayso ma leh haweenka danyarta baan ka hadlayaa waxa weeye muxuu cid idin la hadlayso ma leh waa la idin soo dhaweynayaa ka kaca ma leh waad ogtihiin muxuu ahaayo suuqyada saa u ganacsanaysaan ganacsigii haweenka wuxuu ka dhigay xor nabadgelyo waxaan kale oon ka hadlahayaa dalka wuu daafaca dalka wuu adkeeyay wuxuu adkeeyay galgala oo layna kaga soo duuli jiray wax walba ka dhici jireen maalin wuxuu adkeeyay furinaha ku dhici kara maanta ma jiro waxa weeye siyaasadiisa iyo awoodiisa oo isticmaalo waa nin nabad jecel waa nin aan jeclayn inuu cid ku duulo waa inaan jeclayn in cid muxuu ahaay la dhibaateeyo waa nin cadaalada waxaan codsanaynaa maanta oo aan u sheegaynaa baarlamaanka 66 ka nin baa wax doorta cid kale wax doorta ma jirto baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa shicibka idinka wakiilka idinkaana u dhaartay in aad doorataan nin Cabdimooli Maxamed Cali Gaas oo aad ku doorataan wax qabadkiisa nabadiisa jeclaantiisa iyo siyaasadiisa waxa weeye anagu ma nabcin ragaysa soo sharaxay waanu jecelahay ragayagi weeye laakiin anagu Cabdimooli Maxamed Cali Gaas waa ku seexanay waa ku soo toosnay nabad baan ku soo toosnay ku soo seexanay waanu jecelahay nabadda aad iyo aad waxaan uga codsanayaa muxuu ahaay baarlamaanka inay waajibkooda gutaan oo doortaan Cabdimooli Maxamed Cali Gaas soo noqodo nabada haye soo noqodo nabada إنف كباري عيد مودوق عين النقال إنف كباري عيد مودوق عين النقال دمانكو على مسار وكسو عصادي دمانكو على مسار وكو عصادي
وعدالة وشقيهن يسوى عدالة داني عبد ورن المسؤول أبوها مسؤول كوغاذي ننكا مغضيبوها مسؤول كوغاذي ننكا مغضيبوها مشاريع شرف لي ماموري وحغابات مشاريع شرف لي ماموري وحغابات مسك سوسار مرخاها انتنا لوغيها أقويان عانوي علمي كلين الله إمام هذا يوم ماذا حوينا لو عدصدي عد كيلو شو عيدي سلا عدصدي عد كيلو شو عيدي سلا عدصدي عدالة دينو شغايهنا يوا عدا وعدالة دينو شغايهنا يسوا عدا دادا شورير بلان دورر وين كغالي ودادا شورير بلان دورر وين كغالي أغنت دنيا شعب كيسان ضيعين أغنت دريال شعب كيسان ضيعين أغنت دريال شعب كيسان ضيعين دلك يدي بدوا أمان تيسودا لاشتاي دلك يدي بدوا أمان تيسودا لاشتاي دلك يدي بدوا أمان تيسودا لاشتاي دنب الله الله يا نبادينا سود البال دنب الله الله يا نبادينا سود البال سلام كبعدي ما أنت وحن درينكيga ku cabiraya anigoo kamida gabdhaha Puntland gaar ahaan gabdhaha gobolka Nugaal waxaan dareenkayga ku cabiraya Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo ah madaxweynihii 5 sano oo hore Puntland u talinayay sidii loogu boogsan yahay ama loo jecel yahay ama annaga gabdhahaan ay nooga go'an tahay inuu dib ugu soo laabto oo 5 sano oo dambe iyo 5 sano kaleba noo maamulo ka asaas leeyahay wax shakhsiyan ah kuma taageerin laakiin Cabdiwali Maxamed Cali Gaas mudane madaxweyne waxaan ku taageeray danaha guud ee Puntland iyo danaha guud ee dadka nugul ee Puntland madaxweynaha waxaan ku taageeraynaa dhammaan gabdhaha iyaga kan halka kan isugu yimi waxaan ku taageeraynaa gaar ahaan anigoo dareenkayga ka hadlaya waxaan madaxweynaha ku taageeraynaa waxqabadkiisii aan uga baranay 5 sano oo uu xilka hayay sidii uu wax u qabtay oo uu wax ugu qabtay bulshadiisa reer Puntland meel kasta ay joogaan walaalayaal waxyaalaha madaxweynaha aan ku xasuusanno oo dareenkayaga maanta kiciyay oo kalifay inaanu isugu nimaano hoolka kan hotel Juba annaga oo dareenkayagu uusan caadi ahayn oo muujinayna taageerada madaxweyne Cabdiwali Cali Gaas mar labaad inuu kursiga ku soo noqdo waxa kamida waxqabadkiisii muhiimka ahaa waxyaalihii maguurtada ahaa ee Puntland uu ka sameeyay oo ay kamid ahayd ayraboorada Puntland ee Boosaaso iyo Garowe waxaana taabanaysa oo nagu ah arrin aanan marnaba ilaawi karin wadooyinka isu furaya meelihii kala xiraa ee muddada badan loo kala sadcaali jiray oo ay ka mid tahay wadada Ceel Daahir wadada isku xirta Gaalkacyo iyo Galdogob wadada degmada Buurtile iyo Xarfo oo dad badan ay kaliyahoodii darawaliin badan ku waayeen oo maanta si sahal oo fudud lagu marayo sida aynu ognahayba walaalayaal reer Puntland inta ay maqlaysa waxaad ogtihiin inta uu madaxweyne Cabdiwali Cali Gaas xilka hayay inay jireen dagaalo waaweyn
oo ina food saaray oo layna ku soo duulay oo ka dhacay deegaamadeenna Puntland oo tiro badan ugu yaraan 5 baan ka xasuustaa waxaa lama ilaawaana sida uu cadowgaas ina ku soo duulay aynu u galinay naf iyo maal isagoo inoo ku ahaa maskaxdii ina hagaysay oo difaacaysay iyada oo waxaa la taaban karaa inaan dawladda federaalku wax taageero ah innaba aysan ka geysan dagaaladaas iyo difaaca Puntland oo ay ku baxday lacag aad u tiro badan oo 100 milyan gaaraysa ayna ku dhinteen dad aad u tiro badan ma diidanin reer Puntland inay ka dhacdo doorasho xalaal ah laakiin waxaanu annagu diidanahay oo gabdha ahaan codkayaga si cad ugu dhiimanayna in isimada Puntland maalin walba guri bulcawsa aysan ugu furin ee guri riigsaday oo yagleelay aanu noqono waxaa la yiri oo lagu mahmaahay waxaa la yiri oo lagu mahmaahay walaalayaal waxaa lagu mahmaahay Soomaalida waxaa la yiri been way sheegtaa laakiin been ma mahmaado waxaa lagu mahmaahay hadii degdegsiiyo door dhalaan kaadsiiyo kiish lacag dhalaan annagoo aan u diidayn walaalaha iyaga musharaxiinta reer Puntland ee sharafta leh annagoon u diidayn xil inay qabtaan oo jaaniskooda u ogol ayaanu waxaanu dareemaynaa oo jecelnahay gabdha ahaan markaan si cad codkayaga u dhiibano in aan dawladda Puntland oo hadda dhisan mar labaad si ay ugu dhammaystirato kaabayaasha dhaqaale ee qabyada ah iyo baahiyaha wada qabyada si ay u dhammaystirato in laga fakaro Cabdiwali Maxamed Cali Gaas dictatorka in lagu soo celiyo xilka mar labaad walaalayaal aniga aad iyo aad baan waxaan markaan kaliga istilmaamo waxaan jeclahay inuu ku soo noqdo Cabdiwali mar walbaba waan jeclaa laakiin mar aan xoogaa dareenkayga cabiray xoogaa yaroo tixa buraanbur ah baan ku daray dareenkayga suugaanta waa la iga fiican yahay waxaan rabaa inaan dhageysano wixii turxaana raalli ha la iga hado buraanburka ku jira khadarow dalwana jerabi dubka kamarido khadarow dalwana jerabi dubka kamarido nin dar kuma diide doqon baan wax garanahayn daminiyo niman ku doonaynin daraja male cirku ku dirir dhulkuna ku dabeecsama oo dib ugu soo noqo kursigan dareen lahaa jerabi dubka kamarido khadarow dalwana jerabi dubka kamarido malaa'iga dacadihi dood ha ku galeen jibriil ku diriiryay iyo ciidane badiray jibriil ku diriiryay iyo ciidane badiray duqowdu ku dooratiyo dubabkii Puntland dib ugu soo noqo kursigan dareen lahaay
ku doonayaan khadarow dalka iyo dadkuba waa ku doonayaan waxaa ku duuban shacabkaga dacadda waxaa ku diriray ilmaha dugsida ku jira nin danle mooyaane dadku waa ku jecel yihiin ee dib ugu soo laabo kursigoon dareen lahayn dadku waa ku jecel yihiin khadarow dal wanaaje dadku waa ku doonayaan waxqabadkaagii dadnaaba bulshadii anfacay dadaalkaagii badnaaba dadkii anfacay dekadahaad noobinahaysa dadkii anfacay waddooyinka daahfuraysa dadkii anfacay ayraboorradanoo dangiga dadkii anfacay cadowgii sidaad u didiisa dadkii anfacay ee dib ugu soo laabo kursigoon dareen lahaa ayadaa qur'aan ancaamiyo labaalka afbaan erdaa ku qoray cabase kuu yidhisiyo suuradaa culculus allow cimraani culaysoo dhanka hantido allow cadowgaaga arraxmaan xiriirida cadowgaaga arraxmaan xiriirida allow geeshkiyo adugu waynan kala gadoon allow geeshkaagu ahada guuta culus geeshkaagu ahada guuta culus habeenkii gelinka dhexe nabadiyo guul garabkaaga lagu ogaa arraxmaan xiriirida cadow ninkii kuwa rabbigana ka ceshado ninkii kuwa rabbigana ka ceshado cadow ninkii kuwa rabbigana ka ceshado amiin cabdiqayl wax qabadkiisi waa la arkay insha Allah haddana waxaan jeclaan lahayn aan ku sheegayaa xildhibaanada reer Puntland oo dhan innaga wada dhan oo wada is ah inaan haddana aynu maanta 5 sano qabyadeena dhamaystirno maadaama indho badan inagu soo jeedaan oo caalamka baarlamaanka shirayo Puntland ay ku curato ballankeedu wuxuu yahay burburkii la soo maray dadkii baadiyoobeen ku abaaday buuraha inaad baafisaano beelaha isu keentaa nabad noogu baaqda maanta waxaan naga muuqata aad farxad u sarreysa farxadaas oo ashcaaraheeda buraanburada heesaha iyo sacabka iyo boodada aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxaanu taageeraynaa cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha Puntland waxaanu ku taageeraynaa madaxweynuhu marka uu musharaxa yahay wuxuu sheegaa waxyaabo badan waxay dhisan tahay Puntland ilaa 20 sano 20 sano madaxweynuhu musharax walbaaba marka uu soo taago goobta barxadda caasimadda Puntland wuxuu noo sheegaa waxa uu noo sheego markuu kursiga ku fariisto ayaa waxa dhacay isbedel tiro badan laakiin waxaanu aragnay annaga markii uu maxamed cabdiweli maxamed cali gaas uu soo istaagay barxadda waxyaabihii uu yiri ilaha dhaqaalahana waa uu muujiyay sida aanu aragnay ama aanu ognahayba wuxuu noo ballan qaaday ballanqaadka uu noo sameeyay maxamed cali gaas waxaa ka mid ahaa lambarkow inuu ku dooday waxaan samaynayaa ilaha dhaqaalahana waa uu bilaabay waana dhammaystirayaa waxaanu codsanaynaa oo aanu ka codsanaynaa 66 baarlamaanka Puntland maxamed cali gaas inuu dib ugu soo noqdo oo uu dhammaystiro waxa madaxweyne walba oo reer Puntland wuxuu ka tagaa shaqada iyada oo ay dhiman tahay uu ka tagaa markaas kadib waxaan ugu dhaca kala daadasho waxaanu maanta ku tuugsanaynaa oo 66 reer Puntland oo ah xildhibaanada aan leenahay madaxweynaha maxamed cabdiweli maxamed cali gaas inuu si xoogan noogu qabto wixii hadda u harsan oo uu qabtay oo intuu soo qabtay adgaan
waxaanu taageeraynaa maxamed cabdiweli maxamed cali gaas baanu taageeraynaa waxaanu ku taageeraynaa waxyaabaha xooga badan oo inoo qabtay innaguna aynu dheheena ku aragnay waxaanu kaleeto oo aanu ka codsanaynaa 66 xildhibaan ee Puntland inay mar kaleeto sheeko qabiya ama aanu rabno sheekada qabiyada dekada garaaca waa dekad hadda asaaskeeda la sameeyay inuu noo dhammaystiro oo naloo daayo baan ka codsanaynaa haddaan nahay dadka tabartaya haweenka iyo carruurta waxay ka mid yihiin nugulka waxay dadka ay raacaan oo u sacbinayaan waxay ku arkeen oo ay u sacbiyaan bay qabaan markii waxaan leenahay dekada garaaca hana loo sameeyo hana loo daayo cabdiweli maxamed cali gaas farxad ila abdigeedi cabdiweli maxamed cali gaas wuxuu kaloo sameeyaa nabadda ayuu ku dadaalaa waxyaabo badan oo nala ku caqabadeynayay oo cadowyo badan oo reer Puntland lagu soo taageerayay ayuu wuxuu u diidayay in maxasta iyo maatada laga caysho dalka oo uu ku dabaalay nabadgelyo ولنا وحن كنا نبتكلم امبارح مع مصيحنا بنانكا إلهي ما هذا إثباتات إسكاله أوغا أنا وهذا كمان أنا بغيره وين المقطع الأبيض بنانكا مصيحنا نبتكلم وحن مصيحنا بنانكا وحن كنا بنانكا وحن كنا سنة نبتكلم بنانكا قرح البلاية يعيد مصر دولة من ضمان أنا أرجنه nabadgelyo qof walba meesha qorraxda ugu dhacdo ku seexda si waxda ugu socotay taasna ilaahay baa mahad iska leh laakiin maamulka iyaga maxamed cabdiweli maxamed cali gaas ayaa waxaan leenahay nala soo celiyo bullaakii daadaheeye daryeela nooqo bullaankii daadaheeye daryeela nooqo cadawa soo duula kii daafacaya nooqo oo daalinkiiyo tuugu kursigaaga kuma degaan yaa fadhiyay bullaankii daadaheeye daryeela nooqo cadawa soo duula kii daafacaya nooqo oo daalinkiiyo tuugu kursigaaga kuma degaan tuugu iyo daalin aan waxba garanayn kursigeena ayuu ku degin Kali